بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن دغيستيال iyo daawadayaal meel kasto aad dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada taariikh nololeedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kooban magaciisu waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii markuu ahaa 1962 waa diblomaasi iyo siyaasi Soomaaliyeed oo soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya wuxuuna ahaa aasaasaha xisbiga cadaaladda ee Tayo Maxamed waxa uu la soo shaqeeyay xisbigii SYL waana xisbigii ugu horeeyay ee siyaasadeed oo ka shaqeynayay dalka sanadkii markuu ahaa 1970 aabihii waxa uu ka soo shaqeeyay waxdii arrimaha bulshada qaybteeda gaadiidka Maxamed waxa uu haystaa laba baasaboor ama laba dhalasho oo kala ah dhalashada wadanka Soomaaliya iyo dhalashada wadanka Mareykanka markii aan u gudubno qaybta waxbarasho Maxamed wuxuu dugsigiisa hoose ugu baxay Fort Sheikh ama Kowda Luuliya dugsiga dhexe waxa uu ku dhameystay iskuulka loo yaqaan Maxamuud Harbi kan sarena waxa uu ugu baxay farsamada gacanta ee la foole waxa uu ka shaqo bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda dabiicadii sanadkii markuu ahaa 1982 waxa ka howlgalay Central Archive muddo yar kadibna waxa uu ku wareegay xafiiska maamulka lacagta halkaas uu ka ahaa xisaabiye qoraantii sanadkii 1985 waxa loo bedelay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka halkaas wuxuu mas'uul ka ahaa arrimaha maamulka lacagta ee safaaradda sanadkii markuu ahaa 1988 waxa lagu amray inuu dib ugu soo laabto xarunta wasaaradda ee Xamar waxa uu soo go'aan ku gaaray in waxbarashadiisa uu dhameysto dalka Mareykanka ayuu weydiistay mangaliye siyaasadeed tacliinta sare ama heerka jaamacadda wuxuu ka dhameeyay jaamacadda ku taal magaalada Buffalo ee gobolka New York waxa uu na dhameeyay State University of New York at Buffalo isla jaamacaddani ayuu ka qaatay shahaadada takhasuska ah oo loo yaqaano master degree takhasusyadiisa waxa kamid ah cilmiga siyaasadda xiriirka adduunka xuquuqda aadamiga cilmiga baadigoobka nabadda horumarinta dadweynaha iyo shacabka iyo xiriirka hogaamiyaha laga rabo leadershipka waxa uu sidoo kale jagooyin ka soo qabtay dawladda hoose ee magaalada Buffalo ee gobolka New York degmada loo yaqaano Air County oo iyaduna ka tirsan gobolka shaqooyinkaasi waxa kamid ahaa sanadkii markuu ahaa 1994 waxa loo doortay Buffalo Housing Commissioner ama kumasaariyaha waaxda gudaha ee magaalada Buffalo waxa uu halkaas ka noqday guddoonka arrimaha shaqaalaha oo shaqadu ahayd horumarinta iyo daryeelka shaqaalaha hay'adaasi waxa ka shaqeynayay dad ka badan 500 oo qof isla muddadaasi waxa maayarka ama duqa magaalada loogu magacaabay project manager waaxda dib u soo nooleynta magaalada Buffalo Renewal Agency sanadkii markuu ahaa 2000 ilaa 2002 wuxuu gudoomiyaha degmada Air County Active uu magacaabay isku xiraha xafiiska ganacsatada dadka laga tirada badan yahay ee loo yaqaano minority-ga ee ku nool degmada Air Minority Business Enterprise Coordinator ee gobolka New York halkaas waxa uu ka caawiyay ganacsato aad u fara badan oo u fududeeyay sidii ugu heli lahaayeen qandaraasyada iyo mashaariicda degmadaasi waxa uu maamulay dhaqaale ka badan 100 milyan oo dollar oo lagu talagalay in lagu horumariyo dadka laga tirada badan yahay sanadka markuu ahaa 2002 ilaa 2010 waxa uu gufnatorihii hore ee la oran jiray George Pataki uu magacaabay in uu maamulo u noqdo xafiiska xuquuqul insaanka ee wasaaradda gaadiidka ee gobolka New York Regional Civil Rights Management of New York State Department of Transmission howshiisu waxay ahayd inuu ilaaliyo xadgudubka lagu sameyn karo dadka laga tirada badan yahay ee loo yaqaano minority-ga waxa regionkan loo qoondeeyay ama gobolkan loo qoondeeyay sanad waliba 400 oo milyan oo ah in lagu talagalay in lagu horumariyo degmada waxa uu maamuli jiray dhaqaale ka badan 80 milyan oo dollar oo lagu talagalay in la gaarsiiyo dadka laga tirada badan yahay ee affirmative action waxaan intaas dheer inuu prof ka soo noqday ama qof bara ka soo noqday jaamacadda la yiraahdo State University of New York at Air Community College waxa uu ka dhigay cilmiyo kala duwan oo ku taxalluqa horumarinta bini'aadamka waxaana kamid ahaa maadooyinka uu ka bixin jiray leadership skills project management art thinkers
and notification and collective of relationship waxa uu sidoo kale xubin muuqato ugu jira dhanka siyaasadda dalka Mareykanka oo si toos ah iyo si dadbanba u wada shaqayn jireen US Senator, US Representative from New York State iyo siyaasiyiin kale oo ku xiran gobolka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii loo doortay ra'iisul wasaarihii dowladda ku-meelgaarka ee uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed waxa uu soo jiitay qulubta iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed waxa uu tusay awoodda uu leeyahay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya danta dalka iyo dadka oo soo jiidatay qulubta shakhsi kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah hadduu ahaan lahaa siyaasi ama shacab Soomaaliyeed. xalay waxa ay ahayd habeen ugu duwan habeenada kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan dunida dacaladeeda qaasatan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. dad badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay isweydiinayaan halka ay ka timid neynaasta Farmaajo. haddaba magaca Farmaajo waxa laga soo dharandariyay sida tan aad waxay u taagan tahay farxad, aad waxay u taagan tahay aaminaad, raadana waxay u taagan tahay rajo, maadana waxay ka timid midnimo, aadana waxay u taagan tahay aaminaad, kalena waxay ka timid aragti, jaadana waxay u taagan tahay jaceylka shacabka, oodana waxay u taagan tahay olol nabadeed. haddaba dhageyste ma kula tahay inuu Farmaajo uu buuxin karo shuruuciyaha iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan? intaas ayaan ku soo gabagabanayaa taariikh nololeedkii koobnaa ee aan ugu hadlayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. anigoo Cabdifataax Cali Jaamacadda Kacdaxan Jadiid ayaa idin soo saaray waxaan ii farsameynayay Maxamed Amiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Laaska. intaan taariikh ceenkan oo kale aan dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegayaa heestii Farmaajo iyo fanaanka codka macaan Subar Dayax Dalnuushe. dadkeenuna wanaagiyo waxtarba isdhaafshee waqtigiyo ayaankiyo kala waca nasiibko dadkeenuna wanaagiyo waxtarba isdhaafshee dadkeenuna wanaagiyo waxtarba isdhaafshee adiguna waxaa tahay farmaajo wadaniga dhabtaho dhammaan Soomaali weyn wadnahooda degay. adiguna waxaa tahay farmaajo wadaniga dhabtaho dhammaan Soomaali weyn wadnahooda degay. wiil iyo ilaa gawaar ilaa gawaar waan ku hawayno waan ku haybinayne waan ku hawayno waan ku haybinayne waqtigaagi weeye welcome Farmaajo waqtigaagi weeye welcome madaxweyne welcome. wiil iyo ilaa gawaar